بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل كلمة لبعض أما كلمة لبعض أين صوت وين ما أنت كاسو خسيا أردنا شيء بارك دقت أما جودهم با قليها الله يغانو medical staffska أما كشخية عافماتك الدنيا رسيهاي يهدو public health كشقيه يهدو السريهاي يهدو شيء بارستيهاي يوحي كلا حيل ليتك الله عافماتك waxyaabaha muhiimka ah ee mar beerasana topiga muhiima inagu aan dheeraynayn iyo insha Allah soo bandhigno maanta waxaan eegaynaa kulankeeni labaad ka hadlayay waxyaabaha caafimaadka kusaya inta badan ama dadku ay u baahan yihiin inay ogaadaan maanta waxaan eegaynaa waxa loo yaqaano dadku ay ka qabaan suspectiga ama ay aad uga xasaasiyadda ka qabaan waxa weeye HIV dadku waxa yaqaaneen ama kuma cadeen AIDS baynu leenahay kaasina maanta xogaa keenay 2 daqiiqo 3 daqiiqo inagu aan badinay HIV waxa ku taqaan inuu yahay virus loo calo waayay oo dadkii baabah ka dhigay oo muslim galba ku dhaca qofba ku dhaca rag iyo dumarba ku dhaca dadku waa badan kooda HIV gaasi la iska ilaalin lahaa ama waxyaabo lagu kala qaadi lahaa inagaan koobay 2 ilaa 3 HIV waxa uu naqaano ama inaan HIV weyn viruska loo yaqaan HIV ga inta badan wuxuu sababa waxa loo yaqaan AIDS qof markuu HIV waqti badan la noolaado aakhirka AIDS isku bedelo calaamadihi ayuu muujiyo markuu qofku calaamadaha muujiyo ayaa loo yaqaan qofkaas AIDS ayuu garay face loo jeeyo AIDS laakiin marka hore 3 bilood hore 4 bilood qofku AIDS ma laakiin maxay waa HIV positive waxyaalo ka qaba kamid ah fayraskaas ugu horeeya waa galmada waliba galmada aan sharciga ahayn bal kala qaada taan sharciga ahayn bal kala qaada ama sinada dadka waxa uu yaqaaniin bal kala qaada u badan waxa kale uu qaadi karaa dhiig qof AIDS qaba oo jirkaaga soo galay saadu dhiigu dusha ka taabto ka qaadmays waayo jirkaaga ma gelin ama meel doosho hadii aan lahayn oo aan ka gelin HIV qaadmays asii shadiidi qof HIV qaba oo jirkaaga gaaro si ha u gaaray kadibna uu circulation garo ama uu meel jirkaaga doosho galo inaad qaadid bay u baahan ama taan qof HIV qaba ayaa dhiig laga shubay qof caadi ah lagu shubay ama qof aan qabin soo qofkaas AIDS waa qaadaya si u baahan number 2 waxyaabo lagu kala qaadi karo waxa kamid ah AIDS-ka waxa loo yaqaan maxay waxaan sheegnay in lagu kala qaadi karo maxay galmadii aan sharciga ahayn iyo tii sharciga ahayd hadii aan loogeyn number 2 dhiiga qofka lagu shubayay inta badan hadii aan la iska baarin HIV laga jeegarin isna waa laga qaaday HIV number 3 needle sharing dadka irbadaha ama drugska yaqaan drugska isticmaala ayaa la yiraahdaa bajiifka inta badan oo badan needle iska isticmaalaan waxyaabo hal needle inay dhowr dawo isticmaalaan kadibna dhowr qof isticmaalaan halkii needle halka needle qof kamid isku mid HIV ga qaba kuwa kan waa ka qaaday waxa kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan commercial sales workers dumarku ka ganacsada ama dumarka inta badan gaalo badan yihiin dumarku ka ganacsanayaan dadku waa qaasin karaan haday tahay simantii haday tahay dhiig soo gaaray qofka haday tahay badii la shirgarinayay iyo commercial sales workers ama multiple sales workers waxa loo yaqaan qofka galma dad badan la sameeyay inuu HIV qaasiyo dadka isna uu ku dhaco ayuu dhowday waxa loo yaqaan galmada marka laga hadlayo dhowr wax baa loo qeybiyay waxa naqaanaa galmada caadiga ah miirka qabta waxa jirta galmada miir qabino la yiraahdo waa galmada oral sex-ka ay dhahan gaalo ama la yaqaan anal sex-ka waxay dhahan commercial sex-ka ayaa noocaas lesbianska ayaa noocaas ah soo waxay dhahan marka sex-ka caadiga ah oo niyo gabadh isku tagay sida halkii la iska taraagis iga tagay waa gooni waxa loo yaqaan anal sex-ka iyo oral sex-ka iyana waa qayb kale oo cilmi gaala ama gaalada ilaahay ka fogaaday ee xad gudbay ayaa isticmaala qofka anal sex-ka la sameeyo dad ama waxa dhahan anal sex-ka ayaa wuxuu ka khatar badan yahay oral sex-ka iyo vaginal sex-ka 10 jeer khatar badan dalka u fiirso inaad sameeysid anal sex oo meeshii aan sharciga ahayn la iskaga tago waxay ka khatar badan inaad AIDS qaadid 10 jeer bay ka khatar badan inaad vaginalka uga tagtid ama inaad sayso halka oral sex 10 jeer haddaba ragga iyo dumarka keebaa wax qaasiya halkaas oo meel xasaasi la socod rag iyo dumarka keebaa wax qaasiin badan
ragga dumarka qaasiye badanka mise dumarka wax qaasiye inta badan wax arrintaas xasaasi weyn ranay xasaasi weyn aan sheegaynaa inta badan male to female miyaa badan mise female to male baa badan inay wax qaasiye HIV si la isku raacdiyo waxay qortaa male to female ayaa wuxuu ka badan yahay 2 jeer female to male yani waxa weeyuu ragga inay qaasiyaan dumarka AIDS rag inay qaasiyaan dumarka AIDS ayay maxay ka badan tahay 2 jeer ka badan inay dumarku qaasiyaan ragga soo maxaa baa marka male to female ayaa moora laakiin female to male waa less female to male waa less soo qodobkana waa taan muhiim jiddan weyn soo hadaa aragtay oday inuu casaadeen ku oranaya waxaan u baahanahay HIV baa laga helayo islaantan ku dhigay ama islaantan fooda ka mareegay meel saaraya ha oran jooji dhig stage shaacab stage markuu stage haraad ka badacta adeero cilmigaas ay jirta rag 2 jeer qaasiye oo dib isku noqo xisaabi kadibna marka xisaabi soo noqo waxa la yaabaa inuu god galay inta badan ma taqaan rag iyo dumar ragga wareeg badan haday luqluq tahay haday dhowr gabdhood la hadlo ay tahay dandaansi ragga ku badan gabadhu dandaansi ma badan soo gabadhii inta badan yar u soo xadgudbay iyo ma xadgudubto sababta oo baa loo yiri gabadhu ayaa in la qaasiyo badan inta badan HIV oo raggu qaasiyo 2 jeer حاولنا الله يقان STD أتقانين كلاميدو كم تاعي شبتو كم تاعي سيفلس كم تاعي حياة عسقط خدوق كمانا وحي فاسد تذكريان أما أي كرديان أما أي عاويان إن قف إجي فيها ونقلادو إجي فيها إن ونقلادو أي تاسنا كعوسا سو حياة يليس كنت بان على الله يقان سير الله كلا قاضي ككوبدا وعن شيء ناو حياة يليس فيسس كأمره بكوز جدوين فيسس أما تدري فيس مر يليس قف كم مرك وكل يليس phase 1 baa la maxaa la yaqaanaa phase 1 ka AIDS-ku ama waxa la yaqaanaa phase 1 of HIV infection marka laga hadlayo waxa la phase 1 kaas wuxuu dhaxayaa 3 ilaa 12 week intaas waxa la phase 1 qofku markuu AIDS-ku uu hayo 3 week ilaa 12 week inta waxa la yaqaanaa phase 1 phase 1 qofku waxa uu yaqaanaa calaamado muujiyo waxa kamida qofku inuu yeesho waxa la yaqaanaa maxay skin rash-kii meningitis-kii hyperidemia sotrotic halka la qofku inuu xumad yeesho qofku inuu firan iyo rash ku yeesho jirka qofku inuu meningitis yeesho meningitis inflammation of meninges membrane ka kale hyperemia inuu feremia ama fers ku bato dhiigis iyo maxay sotrotic inuu xanuunayo qufac iyo wareer iyo cunaa ku yeesho kaas waa maxay waa stage kooda ama phase 1